qisadan waxaan ugu talagalay qof kasta oo muslim ah oo aaminsan kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala in wax lagu daaweeyo inay tusaale u noqoto. waxaa jira dad fara badan oo soomaaliyeed oo aada u xanuunsan, dad fara badan oo soomaaliyeed oo qur-aan badan isa saaray laakiin aan weli daawo helin, dad fara badan oo soomaaliyeed oo iyagoo aan weli daawadii helin qur-aankiina aan isa saarin kalaamka rabbina aan isku daaweynin dhakhaatiir tegay. waxaa ila joogtay maanta gabadh yar oo soomaaliyeed oo gabdhaha yaryar ee teenagerka. gabadhaas bishii muddo 2 sano ah 3 isbuuc dhakhtar bay ku jirtaa, 1 isbuuc oo caafimaad qabtaa. waa kow. qodobka labaad, hadda u fiirsada, waxaa loo diyaariyay ay u diyaarsaneed qalitaan. waa 2. 3 halkaa bogga ah maysan ka kici karayn 24 saac. muddo yar ma ahaane inta kale waxaa xanuuni jiray bogga. mar walba waxaa laga hayaa bogga, mar walba waxay ka xanuunsan tahay bogga, mar walba waxay taallaa, mar kasta emergency baa loo qaadaa, cusbitaal bay taallaa. waxay ii sheegtay rabadaankii lasoo dhaafay in ay ku dhammaysatay cusbitaal. rabadaankii lasoo dhaafay waxay ku dhammaysatay cusbitaal. waxay u diyaarsaneed qalitaan kale. waxay u ballansaneed in la qalo oo la yidhaahdo calooshaada ayaa wax ku yaala, mindhiciradaada ayaa sidana ayaa kan ah, waa lagu qalayaa, xal aan qalitaan lahayna ma laha. gabadhaas xaqiiqatan marka la yidhaahdo qof bil shiiba 1 wiig buu caafimaad qabaa, 3 wiig ee kale dhakhtar buu yaalaa. qofka bini-aadanka ma aha yacni wuxuu suuraysan karaa say macquul ku tahay. aniga ayaa markhaati ka ah oo idiin soo gudbinaya. qofka isagana ah ilaahay subxaanahu wa tacaala sabab uga dhigay inuu ilaahay ku daaweeyo, yacni qur-aanu ku akhriyay, laakiin qof kastaba waxaan rabaa inaan dareensiiyo inuu isagu isdaaweyn karo. waa qisaskii aan ugu talagalay walaalahayga inaan la wadaago ee ahaa ku tusaale qaado kitaabka rabbi iskuna daawee. gabadha waa gabadh yar maasha allah, ilaahay edeb iyo akhlaaq buu siiyey. waxaad ogaataa qof kasta oo ilaahay meel ka muujiyey, qofka quruxsan, qofka diinta aada ugu dheereeya, qofka fahmada badan, qofka xifdinta badan, qofka hadalka heli og, inuu qofkaasi uu u yahay tusaale ama uu u yahay maxay ahayde shadaadiinta shayaadiin insi waljinni in uu yahay target xaqiiqatan. walidaalika waxaan rabaa qof walba inuu adkaarta laazimo weysnana laazimo. gabadhaas yartaa markaad aragto ee aada la kulanto waxyaalahay kaaga sheekeynayso aad ba ula tacajubaysaa. subax u dhaweydba waxaan ka qoray oo aan ka qoray report baan ka diyaarinayay bal siday ahaan jirto gabadhan iyo sida hadda ay tahay. muddo bil ah ayay hadda joogtaa oo qur-aanka lagu wadaa, dhigna lagama qaban. muddo bil ah baa qur-aan ku socdaa, dhig lagama qaban. maan dhaweyto maalmihii ugu dambeeyey waxyaalaha cajiib kale waxaa ka mid ah tahliil iyo cabays, dhiig sidiisa soo matagta. waxaan rabaa marka walaalahay soomaaliyeed inaan dhaho qof kasta oo walaalkay oo soomaaliyeed, kitaabka ilaahay waa daawo. kitaabka ilaahay waa daawo. aamin. dadkeena soomaaliyeed waxaad arkaysaa isagoo kuleh waxaan rabaa inaan maaragtay bal meel kasta waan soo quustay inaan kitaabka bal ilaahay isku fiiriyo. kitaabka rabbi haddaad fiirinba marayso kuma caafimaadaysid. aamin inaad ku caafimaadayso. saxaabada nebi maxamed badday ku soconayeen, yaqiintaa la isku dhaaf. waxaa aada iyo aada nooga yaqiin badan oo aada iyo aada mar walba 100% yaqiin ku taagan dadkeena soomaalida marka la yidhaahdo culimmadana tabliiqa. wuxuu aaminsan yahay soco ilaahay baa ku irsaaqaya, waa sax, waa asbaabna ku dar, laakiin yaqiinta la imow. gabadhaas yar ee soomaaliyeed tusaaleha kuu noqoto. shalay way dhibanayd, cusbitaal bay jiiftay, sakaraad bay ahayd, qalitaan bay u diyaarsanayd, way dhibanayd, shaqay ka tagtay, waxbarashay ka tagtay. maanta iyadaa shaqaysan, waxay shaqaysatay cunaysaa, waxay shaqaysateen wax ku qabsanaysaa. intii qur-aanka la saaray ee ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa la saaray buu ilaahay wuxuu siiyey nasri. kitaabka rabbi aan u laabano, aan isaga isa saarno, aan isku daaweyno. wadaad inuu ku saaro shardi maaha. waxaad laasimtaa qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas. waa qisaska qur-aanka insha allahu tacaala marba ta aan ka gaadho ayaan idiin soo gudbin doonaa. kuwo kaloo badan baan hayaa
oo dadka aniga ila jooga ku saabsan maaha waxaan banaanka idinka keenaya dadka aniga ila jooga ee aniga aan maaragtay meeshan Minneapolis ilaahay uu yani sabab uga dhigay maaragtay inuu ilaahay kalaamka ku daaweeyey aanu ku akhrinayno ayaan rabaa inaan tusaale idinka dhigo insha allahu tacaala iyagoo badan baan idiin soo gudbin doonaa qaar qoraaladooda haddii qaar suurta gasho codadkooda ma jeclo dadka inaan codadkooda wax soo bandhigo laakiin si walba aan rabo walaalahayga inaan ku dareensiyo inay kitaabka rabbi isa saaraan ayaan idiin soo gudbinaya insha allahu tacaala qofkii u baahan taliya tusaale whatsappka igala soo xiriir whatsappkaas insha allahu tacaala iina dulqaado haddaan laba maalin laba isbuuc haddaan kaa maqnaado oo aanan deg deg jawaab kuusoo siin waan kuu maqanahay iskuna dabar baan xasuusin insha allahu tacaala haddii aan hilmaamo bini aadan baan ahay aad baad u mahadsantay kitaabka rabbi waa daawo ee aamin inuu daawo yahay haddaad wax kala garanaynin qul acuudu birbilfalaq iyo qul acuudu birbinnaas ayaa daawo ah labadaa haddaad laasimto oo aad u akhridid adiga iyo ilmahaaga iyo reerkaaga kaa badan meel kastoo ku bugta iyagaa daaweyn iyagaa melilka iyo malaxdaba iyagaa dhiqin shayaadiintan iyaga kaa caawin doona insha allahu tacala aad iyo aad baa umahadsantihiin ilaahay idin barakeeyo sheergare gaarsii walaalaha karna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu